Mogadishu ICT Channel waxaad ka baran kartaa wax walba oo la xiriira tiknoolajiyada. Waxaana inoo bilaaban doonaa courses free ah oo ku saabsan Microsoft Office sida Word, Excel, PowerPoint iyo Microsoft Access, video editing, graphic design iyo programming. Waxa kale oo aad ka heli kartaa tips and tricks of technology. Haddaad ku cusub tahay channelkeena, fadlan inoo saar subscribe. Mogadishu ICT Channel kala soco baraheena bulshada sida YouTube-ka, Facebook iyo Instagram. Muuqaaladan taxana ah waxaa ku baran doontaa Windows 10 wax walba oo aad ugu baahan tahay. Kaliya ma ahan inaad fahanto sida loo isticmaalo Windows 10 basics, laakiin waxaad awood u yeelan doontaa inaad customize ku sameyso PC-gaada. Course-kani waxaa ku jira waxyaabo badan oo advanced level ah. Muuqaaladan taxana ah markii ay inoo dhamaadaan, waxaan rajaynayaa inaad fahmi doonto Windows 10 ilaa iyo heer sare. Shaashadan hadda waxaa kaaga muuqda desktop-kan waxaa kaaga muuqda icons. Kuwan waxaa loo yaqaanaa icons. Kuwan si loo sameeyo waa arki doonaa. Tusaale kale kan oo kale. Kuwan kale waa applications aad ku jiro. Halka kan uu yahay folder loo yaqaano si loo sameeyo waa arki doonaa. Laakiin waxaan ku bilaaban doonaa computer-kaada meesha laga galay oo ah start menu-gan. Start menu-gan markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona applications badan. Applications-kan badan labadan qaybood, qaybtan waxaa la yiraahdaa meesha ay ku jiraan wax walba oo aad soo dejistay ama computer-kaada ku imaado halkan ayay galayaan. Halka kale kuwana qaarkood waa si automatic oo default ay meesha ugu jiraan, halka kuwa kalena adiga aad meeshan aad saaran karto. Tusaale kale waxaan u baahanahay inaan hadda meeshan wax aan ka raadin oo waxba meeshan ka rabtaa. Tusaale kale Word oo kale ama wax la mid ah meeshan ayaa ka doonaysaa. Waxaa laga yaabaa in meeshan haddaad saan scroll-kan u qabato oo u jiido waxaad arki inay badan yihiin. Marka habka ugu fudud oo aad ku raadin kartaa wax walba oo meeshan aad ugu baahan tahay waxaad sameynay meeshaas ugu koreyso ayaa ku dhufani. Kadib waxaa kuu soo baxaya xarfaha ABC-da ilaa xarafka ugu dambeeya. Kadib ereyga u baahan tahay ayaa ku dhufani. Waxaan u baahanahay oo kale PowerPoint ay taabani. PowerPoint halkaas ayuu ka soo baxaya. Waa habka ugu fudud ee wax aad ku raadin karto markay timaado meeshan oo applications aad ku jiro. Dhanka kale waxaa u baahan tahay oo kale kuwan hadda Windows asaga ku soo saaray, laakiin waxaa u baahan tahay adiga inaad soo saarato. Tusaale kale waxaan u baahanahay kan oo kale publisher oo meeshan ay qoran tahay inaan inta aan keensano. Maxaa sameeyni asaga ayaa right click leedahay. right click leh. Kadib waxaad tiraahdaa pin to start ay leedahay. Meeshan ayuu kaaga soo muuqan doonaa. Markuu kaaga soo muuqdo adiga ayaa control kara oo meeshii aad doonto geysan kara. Tusaale kale waxaan u baahanahay inaan halkan aan geysano kale. Inta aan geysano ayaan u baahanahay. Meeshaas ayuu ku tagay. Hadda u baahan inta ku darka talenkan meeshaas u karso keeni kartaa. Kan inta waa keeni kartaa. Kan inta waa keeni kartaa. Sida adiga aad doonto ayaa ka dhigin kartaa. Qaabkaas ayaa applications inta loogu soo qaada inta loogu daro. Dhanka kale size-kan oo hadda kan waxaan arkaynaa inuu hadda ay sameeyeen. Hadda u baahan tahay asaga tahay inaad yareysato right click ayaa leedahay. Kadib waxaa imaanay meeshan ay qoran tahay resize. Hadda waxaa ku saaran medium. Hadda u baahan tahay small asaga ayaa ku dhufani. Waxaa ujeedaa inuu yaraaday. Kuwa kalena si lamid ah ku sameyn kartaa. Hadda u baahatana isla meeshii ay ku laabani medium ay leedahay. Sidaas ay kugu soo laabanaya. Waa habka loo soo size-ka loo yareeyo. Dhanka kale meeshan waxaa kaaga muuqdo Microsoft wuxuu ku soo geliyay. Hadda u baahan tahay kuwa inaad mid ka mid ah bixiso oo aadan u baahnayn. Tusaale kale kan u baahnayd waxaad sameynaa right click ayaan leenahay. Si aad ugu bixiso waxaad sameynay unpin ay leedahay. Kuwii markaan soo gelin waxaan unpin aan sumo. Markaan unpin waa. Haddaad tiraahdo kaas meesha waa ka baxay. Marka si aad doonto ayaa una soo kartaa. Marka meeshan hadda waxaa kaaga muuqdo by default inuu meeshan hadda game oo Office-kan maxaa la jiray Microsoft uu ku soo geliyay. Windows-gaada waxaa ku imaada badanaa game. Waxaana ka mid ah kan hadda meeshan aan ku arkayno. Kan hadda ku dhufato waxaa arki game ku diyaarsan oo
aad ciyaar karto. Kan wuxuu u muuqdaa inuu yahay turubka. Waa gameka turubka. Haddaa u baahan tahay waa ciyaar kartaa. Haddaadan kuwaan mid ka mid aysan ku qancin, haddaysan ku qancin kuwaan mid ka mid ay ku dhufani, haddaa u baahan tahay inaad ciyaarto. Kadib meeshan waxaa kaga muuqdo turubka. Haddaad ishaan kasi waa ciyaar time-ka meesha uu kugu qoran yahay halka gamekana meeshaas uu kaga muuqdo. Kuwaan waa option badan. Haddaa u baahan tahay mid cusub inaad soo gelisato, new game u baahan tahay saas ayaa yeela. Gamekan uu ka dhamaado. Haddaa qalado waxaad arki in uu shaashadan ay kugu soo boodayso ay ku leedahay oo ku hagayso sida loo ciyaaray ee lagu sheegay. Waxaa lagu leeyahay step up to waxaa mari 7 ah. Kan ayaa akhrinay kadib next ayaa leedahay ilaa 7 ay soconayaan. Waxaas markaad fahanto ayaa gamekan ciyaar kartaa. Haddaa u baahan tahay mid cusub meeshaas menu ayaa ku dhufanay kadib kan aad ka dhufan marka. Waxaa arkay mid cusub inuu meesha soo galay. Si la mid ah waa ku dhufan kartaa wixii aad doonto. saas ayuu kugu soo baxay. Kuwa qaarna waxa weeyaan inaad oo premium agasho kuwaasna waa kuwa lacagta. Marka badanaa kuwan waxaa ka heli kartaa qaarkood iyagoo free ah Microsoft Store ayaa ka heli kartaa calaamadaas ah. Meeshaas ayaad marka wixii alla wixii la xiriiro apps iyo games iyo applications meeshaas ayaa ka soo dejin kartaa. marka meesha isad menu si la mid ah oo adigoo isticmaalaya Windows key loogadiisa ku dhufo kadib waxaa kuu soo boodaya isad menu. Marka isad menu kuwan waan aragnay sida loo isticmaalo. Waxaan arki doonaa marka meesha hadda waxaa kaga muuqdo calculator. Calculator hadda ku dhufto waxaad arki doontaa in shaashadan ay ku furmayso wax alla wixii xisaab la xiriiro halkan ayaa ku xisaabin kartaa. Tusaale kale hadda meeshan waxaa ku saaran standard way oo xisaabaadka caadiga meeshan kaga muuqdo. Marka haddaa u baahan tahay oo kale in meeshan kuwa kale haddaa u baahan tahay inta ku dhufani kadib option badan ayaa ku soo baxaya. Haddaa u baahan tahay wixii la xiriira scientific meesha ayaa ku dhufani programmer, date calculation, currency, volume wixii alla wixii doonto meesha ayaa ka arkaysa. Marka currency ku dhufato currency wuxuu kuu sheegayaa waxa u baahan tahay inaad noqoto online si currency hadda lacagaha isbedbedelkooda saxda ah aad u hesho. Lacagta euro oo kale iyo lacagta USD oo kale waxay marayaan hadda si online ay meeshan si automatic ayaa u arki doontaa. Marka waa inaad noqotaa online si aad u aragto currency converter. Temperature islamada waa arki doontaa area waxa alla waxa doonto meeshan waa ku xisaabtan kartaa. Kaas waa calculator. Marka dhan ku laaban isad menu waxaan arkinaa qaybtan markii inta ku dhufato waxaad arki meeshan inuu ku furmay. Meeshan qaybtan waxaa kaga muuqdo accounts wax alla wax la xiriir account. Hadda account inuu furun waa kan. Kuwa kale hadii ku furin asaga ku dhufani meeshan ayaa ka arkay. Haddaa u baahan tahay mid cusub inaad soo kashitano waan ku arki doonaa muuqaalkan inaan ku baran doonaa. Laakiin qaybtan kore waxaa arkaysaa inuu ku leeyahay bedel account setting. adoo tagaysa waxay doonto meeshaas ka bedel. Dhanka kale waxaa arkaysaa log. Haddaa u baahan tahay inaad log saarto waa xiri. Sign out waa ka bixi. Markaad mid cusub si loo sameeyo ayaan arki doonaa iyadoo la aadayo setting maana waxaan arki doonaa iyadoo la isticmaalayo command prompt. Si aad command prompt u furto oo account cusub aad u samaysto waxaa qortaa meeshan site-ka ay ku qoran tahay command ayaa qoray. Si uu wada furtaba waa arki ayuu ka muuqan doonaa. Kadib right click ayaa leedahay. Adoon right click dhigin meeshaas ayaa waxaa arkaysaa run as administrator. Meeshan kala qoro furtaa inta qoro furtaa. Mid ku dhufo. Kadib yes ayaa leedahay. Shaashadan ayaa markaan ku soo muuqnay. Meeshan ayaa waxaan u baahan inaan ka soo gelino account cusub inaan samaysano. Hadda waxaa inoo furan meeqa account inoo furan isaga ku dhufo. Kadib waxaad arki halkaad aan ku jirno kana iyo laba kale. Mid saddexaad hadda u baahan inaan soo gelino kan ku dhufo. Kadib waxaad leedahay net user ayaa qoray user space ayaa leedahay. Net iyo user waxa u dhahay space haddana space ayaa leedahay. Kadib waxaad qoray marka account magaciisa ayaa qoray. Account cusub aad doonayso inaad samaysto magaciisa ayaa qoray. Tusaale kale waxaan u baahanahay inaan samaysano W iska qor Windows aan soo gaabinay magaca kaliya aan qorno waa kaas oo account-na cusub.
marka space ayaa leedahay kadib waxaa isticmaali slash inaa mid cusub aan soo gelin u baahan somo waxaa leedahay add kadib mid cusub ayaa meeshaan kaga muuqan doona waxaa lagu dhahay the command completed successful markaad meeshaan account cusub ayaa kaga muuqan doona si aan u xaqiijino in account cusub uu noo galay iyo nin kale waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaan net users qor kadib space ayaa u dhexeysiin wax kasta aad qorto space u dhexeysiin kadib waxaa leedahay inta ay leedahay net users israaciid meeshaas inta dham kadib waxaad arki marka meeshaan hadda waxaa ku samaysan waa administrator iyo magacan iyo kan hadda aan samaysan cusub si aan u xaqiijino sad menu ayaan ku dhufanina kadib meeshaan account ayaan ku dhufanina waxaan arki doonaa koodii inay ahaayeen kan iyo kan inay ahaayeen halka ku cusub meeshaan kaga muuqdo asaga naftir kasta waa bixin kartaa iyadoo la isticmaalayo kan si aad u bixiso waxaad leedahay net ay leedahay user space kadib waxaad qoray magaca account ayaa qoray inaad bixiso aad doonayso w10 ayuu ahay meeshaas ay ka fiirsan kartaa magaca meesha ku qoran aad doonayso inaad bixiso kan oo kala bixina w10 ayaan leenahay w10 markaad tiraahdo space demka slash hadda waxaan dhanay add markaan waa delete inta ay leedahay marka wuxuu ku dhahay command complete successful waxaa mid kamid ah qalado meeshaan hadda successful kuma aanayso wax kale ayaa kaga muuqan doona marka si aan u xaqiijin inuu bixin kale asaga ayaan ku dhufanayna kadib waxaa arki inuu si automatic u bixi waa habka ugu sahlan aad u samaysan karto account cusub command prompt waxyaalo badan ayaa u sameeyaa kaasna waa wuxuu kamid yahay waxyaalaha basic ah laakiin very important ah marka hadda meeshaan aan ku dhufato tusaale kale start menugan waxaan aragnaa sidii account loo sameeyo meeshaan kale waxaa ku haystaa documents wix alla wixii document kugu jiro halkan ayaa ka raadsanay asaga hadda ku dhufato waxaad arki wixii alla wixii document kugu jiro inaa meeshaan ay kaga muuqan doonaan dhanka kale waxaan ku haysanaa asaga saas mooska u saarto waxaa arki picture meeshaan waa qaybta picture-ka wax walba oo la xiriira picture halkan ayaa ka raadsan kartaa setting-ka waa arki doonaa wax walba ku saabsan setting-ka hadda asaga ku dhufato waxaad arki doontaa setting-kaada muxuu yahay waxa weeyaan meesha laga controlo computer-kaada oo wax walba oo ku saabsan inaad computer-kaada ka bedesho waa meesha laga bedelayo system hadda u baahan inaad wax ka bedesho kan ayaa ku dhufanay hadda device u bedesho aad doonayso inaad wax ka bedesho halkaas ayaa imanay wax inaad ku darto phone internet wax walba oo ku saabsan setting-kan waa arki doonaa qaybaha kale aan ku arki doonaa start menu nagu soo celi kadib waxaan arkaynaa marka meeshaan setting-ka waa aragnay meeshaan waxaa weeyaan power ayaa lagu leeyahay power-dan haddaad ku dhufato waxaad arki option badan oo ah sleep shutdown reset haddaad tiraahdo sleep computer-kaada waa sleep ayuu aadaya yacni ma damaayo laakiin shaashada waxay noqoni mid black ah ilaa adiga keyboard-kaada ama meel kamid ah dhag aad siiso kadib ayuu dhalada soo daarmay halka kale haddaa u baahanta inaad computer-kaada aslan aad damisno inta ayaa ku dhufanay shutdown ayaa leedahay kadib computer-kaada waa damaya halka restart-na ay tahay computer-kaada markuu jaam garoobo ayaa waxaa u diray restart si uu si fiican ugu shaqeeyo intaas ayaa power ay ku haystaa qaybtan kale intaan waxaan ku aragnaa sida loo isticmaalo kuwa hadda applications-kan inta loo soo geliyo loo bixiyo size-ka loo bedelo game-kan iyo calculator iyo kuwan ayaan aragnay si account loo sameeyo intaas practice ku sameeyo